gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga beeraha iyo warshadaha Soomaaliland Jamaal Caydiid oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay shir maalgashi oo martigelisay magaalada Hargeysa waxaana shirkan ugu magac dareen maalgashiga taabagalka ah iyo xiriirka dhaqaale ee dunida wanaagsan. Jamaal Caydiid ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirkan uga gol leeyihiin waxaana uu ka hadlay dawladaha ganacsatada iyo qurba joogta ka soo qayb galay waxaana uu yiri waxa uu daaran yahay rugta ganacsiga warshadaha iyo beeraha Soomaaliland waxay martigelisay shir maalgashi oo ka dhici doona magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland bisha April 10keeda iyo 15keeda labada maalmood. Shirka waxaan ugu magac darnay maalgashiga taabagalka ah iyo xiriirka dhaqaale ee dunida wanaagsan. Shirka waxaan uga gol leenahay inay isugu yimaadaan dawlado hogaamiyayaasha ururada ganacsatada iyo daneeyayaasha maalgashiga caalamiga ah iyo in la dhiso xiriir ganacsi oo joogtaysan si kor loogu qaado koritaanka dhaqaale ee gobolka marka la yahay waxa weeye Geeska Afrika. Shirka waxa diiradda lagu saarayaa mowduucyo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa xiriir ganacsi oo xoogan oo u dhaxeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland, Geeska Afrika iyo ganacsatada caalamiga ah. Waxa sidoo kale shirku isku xidhayaa qaybaha ganacsiga ee kala duwan si loo gaaro midho dhaqaale oo waara. Shirka waxa lagu soo bandhigayaa fursado runtii lagaga faa'iideysanayo caqabadaha iyo ganacsiga ka soo baxa iyo fursadaha labada jaarisba si loogaga faa'iideysto oo la isaga yimaado. Shirka waxa si gaar ah loogu soo bandhigayaa laguna falanqeyn doona qaybaha ganacsiga gaar ahaan beeraha, kalluumaysiga, xoolaha, tamarta iyo kaabayaashooda. Shirka waxa ka soo qayb gali doona rugaha ganacsiga ee Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia, Pan Africa iyo dawladaha deegaanka iyo dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ee Jigjiga caasimadeedu tahay iyo ganacsato ka socota dalal badan oo dunida gaar ahaan Holland, Kenya oo UK, Denmark, Uganda iyo ganacsatada shakhsiyaadka ah ee ka kala socda dhamaantood ka kala yimi Geeska Afrika. Waxa kale oo iyaguna ku jira Soomaalidii qurbaha ee loo yaqaan Somali diaspora oo iyaguna runtii si miisaan leh uga soo qayb galay. waxaan ku rajaynayaa inuu shirkan noqdo mid midho dhal ah oo keena xiriir ganacsi oo waara Soomaaliland, gobolka iyo adduunkaba. taasna aniga idin yiri oo ah gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliland. gabagabadii runtii waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa oo hawsha tan aanay la'aanteed noo suurta gasheen Jamhuuriyadda Dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda maalgashiga iyo ganacsiga, wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda promoting inclusive markets la yiraahdo in Soomaaliland iyo Soomaaliya degan Soomaaliland ku noqonaysa mashruuca horumarinta ee suuqyada loona yaqaan marka la soo gaabiyo BIMS. hay'adaas oo ay maalgeliyeen hay'adaha horumarinta caalamiga ee dawladda UK oo loo yaqaan DFID iyo dawladda Denmark ee Danida ayaa iyaguna hay'adaas si maalgeliyay oo muxuu ahaa hawshan runtii anaga noo suurta galiyay soo waca iyo sukeenista. waxaan mar labaad ugu mahadnaqayaa iyagana dhammaan cidii aan casuunay naga aqbashay ee ka soo qayb gashay oo joogta. waxaan rajaynayaa shirka Britain inay ka soo qayb gashaan. waxaa muhiimaddu guud aan idin taabsiinayaa inay tahay baacimistarku sidiisaba waa war iyo is-aqoonsi. dadkii isu baahnaa ay daruhu ka dhaxeeyeen wixii isgaranayay wixii aan isgaranaynba waan isu keennay si looga faa'iideysto ganacsiga geeska iyo ka Jamhuuriyaddu bana hore u maro. waana mahadsantiin. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, shabakadda caalamiga ee Harwanaag, magaalada Hargeysa.